dhulbahanta maanta wuxuu baayay ummadda Soomaaliyeed garab istaag iyo in la caawiyo iyo in la dhiirigeliyo intaana waxaan leenahay hooya caawinta hooya media wada taageerana hubka hooya rasaasta hooya saadka hooya saldhigyada hooya ayaanu idin leenahay wallaahi billaahi tullaahi ninkii ka haraana dhulbahanta waa bilaabay dhulbahanta Soomaaliyeed caayeen Soomaaliyeed dhulbahanto maanta dhulbahanta tahay guul dhulbahante Allahu akbar dhulbahanta waa kacay dhulbahanta waa toosay dhulbahanta waa baraarugay ha guulaysto guulay gooto dhulbahante waa sheer gareeye waa fagaye waa sheer tileed ku qabta waa dhulbahanta la isgarab taago gesiga dhulkiisa gusha uu horseeda geerida dishaay geedka habo isgarab taago bismillaahir rahmaanir rahiim dhulbahantow wixii hadraawi soo joogay kana shisheeyay ee laga dilay ee laga xasuuqay ee habeen walba kugu jira laga taxaabanayay wixii ka sokeeyay sharaf baad ku dhimatay wixii hadraawi xagga u sii joogana halka u soo joogo xagga ka sii xigana sharaf darro iyo wax weey taariikh xumo iyo in gobadnimo iyo wax weeyaan bahdil baad ku dhimanaysay taariikhda doobeena ku gashay halkaas ay taariikhda ku soo joogtay wixii ka dambeeyay hadraawi sangub ninkii la dhihi jiray wixii halka wax weey ka sokeeyena gobadnimo iyo sharaf iyo raganimo iyo dhulbahantii la yaqaan ba dhimanayo sharaf ku dhimanayay waxaan ku leeyahay saddex shay noqon war dagaalka saddex shay kaliya ka noqon war ummadaha noqonina war hoy gaarsiiya war fogeeya war hoy dhulbahanta la iskarab taago fariintana hal la gaarsiiyo dhulbahanto maanta dhulbahanta tahay laakiin dagaalka aad bilowday ee shacabka reer Laascanood bilaabay ee haweenkii bilaabay ee caruurta iyo dhalinyarada iyo haweenka kaliya ku ah ragii ha soo gal dhulbahanta la yaqaan hubkii dhulbahanta hal arko dhishikayaashii hal arko suugagii hal arko waxa weeye qorihiisa la wareejin jiray hal arko hadda dumarkii iyo shacabkii iyo dadkii waxa weeyaan dee loola jiray sibilka loola jiray dagaalka galay waa idin garab taaganahay waad guuleysanaysaan guul dhulbahante wuxuu yahay dhulbahanta u yahay guusha dagaal dhulbahanta u yahay saacadii Ingiriis oo adduunka oo dhan gumaystay oo waxaan ku aakhira u diray oo rartay oo wabiyada kaga talaabay oo ku xagaa baxay waxaan ku iri xaasaskooda rag daabulayay wallaahi billaahi tallaahi dhulbahanta waa diiday waxaan ku iri halkaas wixii Jabuuti loo gaadho xeebta dheer baddaas ilaa badda Hindiya hobyo garacad ilaa iyo maxagayaheed harar dheere Talyaani ha joogo Ingiriis ha joogo waa laga seexan waayay dhulbahanta waxa taliyaha ama commanderka daraawiishta baa wuxuu ahaa Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan laakiin ninka laga qeyliyay ee awrta iyo fardaha iyo waxa ku daabu wax weeyaan wax ku weeraray dhulbahanta yahay maanta 22 in la yiraahdo 22 la yiraahdo dhulbahanta la gumaysanaya oo xaniya laga siibayo oo habeen walba ku jir laga baxaya wax bay ahayd moogtahay la iska dilo laakiin maanta waxay dhaheen dhaqashiya mar bay ka yihiin dheregtu xaaraan ayay dhulbahanta qaatay dhulbahanta maanta wuxuu baayay ummadda Soomaaliyeed garab istaag iyo in la caawiyo iyo in la dhiirigeliyo intaana waxaan leenahay hooya caawinta hooya media wada taageerana hubka hooya rasaasta hooya saadka hooya saldhigyada hooya ayaanu idin leenahay wallaahi billaahi tullaahi ninkii ka haraana dhulbahanta waa bilaabay dhulbahanta Soomaaliyeed caayeen Soomaaliyeed waa lagu dilayaa habeen kasta dhulkaaga waxa weeyaan dadkaagii baa waxa weeysan waxa weeyaan dumarkaagii baa lagu kor kufsanaya oo xoog lagu haysta Soomaaliyeed jirin waa kacay dhulbahante horta dumar bay leeyihiin marka kow la yiraahdo rag waa ku xigaabaan sidii lambar 1 bay hadda noqdeen bariga rag dhulbahanta lambar 1 bahan jiray laakiin hadda
hablaha dhulbahante waa lambar 1 waxaa saddexdaa casho laascaanood ka socda wallaahi iyo billaahi iyo tullaahi gabar Soomaaliyeed baa dhigaysa oo dhulbahanta dhigaysa gabadh dhulbahante oo Siciid Harti ah oo biyi Siciid Harti ah oo asaliyadii ah ayaa dhigaysa oo laascaanood xoreysay oo 14kii ciidan ee maleeshiyaad ee muuse ku soo daabulay ee laascaanood xaway kaga fadhiyay ee gidaar walba dhashiika la taagna ee shalay kulleeyay dhashiika kulleeyay gabdha dhulbahanta baa saaray ka saaray waxa weeyaan ka tuuray waxa weeye buura ka tuuray hadda ma garateen waxaan leeyahay hablihii Soomaaliyeed waa hablihii dhulbahanta waa aragnaa ee Soomaaliyeed ee ragii dhulbahante ha ku soo waxa weeye iyana ha muuqdeen qodobkaas waxaan leenahay dhulbahantow 3 casho yaanu noqon fiiban abadan waynu noqon dagaalkaas wayna joogsan isxoreyntaas wayna joogsan dagaal nafsiyana istifaacu nafsiyan baa ku jirta سيف يوسف بعد مرة يسند البهانتو وعن الله ماذا وارهب كيلو البهانتمي مركا قادك ديارات قاد يو وحلقو مرمو او وحويان لحويا لقو سوكو باطيو وهر اي ادون كلا سو بيحي جري سبين ندى يا دشيكها وحويان سوققا وارهب كان حقو جري هب كان حق دمبا يغا موقدا البهانتو هب كان كوشاري قارنتاي عيلا سعيد دوغا شغين واي maxaa dumarka iyo carruurta iyo dhalinyarada waxa weeyaan aan hubaysnayn hubkii laga qaatay adeer maxaa weeganaysa hubka soo gal dagaalka waxa weeye hubka soo galiya laascaanood soo galiya ka soo gala howlka ka soo gala koonfurta ka soo gala waqooyi ka soo gala bari ka soo gala waxa weeye galbeedka ka imaada laascaanood dumarkii baa xoreeyay iyo dhalinyaradii aan hubaysnayn ayaa xoreeyeen gacantana dhagax bay ku sita Falastiin baad moodaysaa gacantana calankii qaranka Soomaaliya ee waxa weeyaan Xasan Sheekh Maxamuud loo dhaariyay ayay sitaan adeer waxaan leenahay adeer hubkii caadiga ahaa SSiyadii falaalugiyadii war waxaad sheegayseen haddaba dib meeshii loo baneeyo loo salaxiyay taadana soo galeen qodobkaas waa qodobka dhulbahantow waxaad u dagaalamaysaan oo hadda maanta laascaanood xag kale ugu rogtay muuse biixiyo wixii la noo sheeg mise xornimad u dagaalamaysaan gobonimad u dagaalamaysaan waxa weeyaan inaad banaanka degtaan dawladdiina ku dhawaaqdaan cid wax ku darsanaysaan iyo hadda kaliya wax samaysanaysaan miyaad u dagaalamaysaan mise muuse noo sheeg wixiina dilay oo Somaliland baanu nahay ayaad u dagaalamaysaan haddii aad u dagaalamaysaan muuse noo sheeg muuse shalay buu idin la hadlay muuse bixi shalay buu hadlay wuxuu yiri dhulbahanta waxa dilay anagu garan mayno suqul kuma lihin farana gashan mayno إذا بدرت هتشوتشين هذيك اللي إذا ما بشيء كلا دعية كواس ولا تصير لينا يا وحنا قررنا مينه نيكي وايد الله هذا موسى أها وعلى يدي صومال ما هذي بينك وما هذا إيل كان كين دقة ويرجعتي وعي كلا يراهدان نيكو دلي هركو متشيدو وارموسى بيحدي سقايد لينا يا هرانو شجع واتاني وارموسى مدح وين أراكم مع موسى يا أو رول بهت قربت صاف شريسة قربت صاف شريسة واتاني نري أفر يطبن كن أو عيدا أو وحويان موسى بيحبو لسعون ساقوريتي أدير عشان بريها إيو ملعيدا إيو وحويان وروحا بيسابيلada إيو حرم عدد والا قبطاده وحوي وكوا صوف فقايه هدي قف للدلو هبني مالا سرقيسين للدلو وبرعين للدلو وبربرين للدلو وقبيل للدلو ووجهين للدلو مركب والا صوق قبطايه رول بهانته هدي وحويان روحا لين لا صوق قبطو أنا مني لغو صوت دري أنا ما لبس السلام لبا وحوي كوحود أو يكوسي أو يجو وحوي سكاي وحوي هوك سوك قوة ميا سوق صوق قبل أيوه هكذا الباطل هو صوف ده وريا الباطل ودوالك تلو يرهي قصر ريا أنا وحمد السيجا وراي تيار كا حتى شرف كربتان هتشوتشينين كعدون كا إيه وحوي حرين تاع الله سبحانه وتعالى يسير هلقا كوودا وحوي موسى وحكو دلي كوسو قبل ما أيوه وكبر كيدي كو أسكي شوجا نكي هتراوي لورنشري سنج هتراوي إذن كو أسكي شوجا دشيكي دلنا نعي أو الشعب كساوري أو دلنا يو بحيل البحنتة صدق شرعي الله قلب كاسر وقلب كاسو وإن هذا وحوي دجال كونه النقطة لمن موسى دونا ينقصوا قبطه ومدحوينه وياهي والتسومان اللي أنت وحويهن هذا قاعد كم إذا شكتا أما ينادي حرمه ودجالنتانو أيضا هبني مالن أيضا صحن رجل البحث يبكي البحثنا أي سوق على الأسعار أي لوب أي قلب كاسو وقلب كا أحمد كراسو إن جمد أهادي سريلانكا داي أدول بانت لو صار احترابات وأن بيه سعيد هرتيهن
oo aan meel la ka soo gelin oo reerka lagu soo dhex tuuray oo reerka lagu dhex sidaayay baata sheegad dhalay baata waryahay haddaad in dhulbahanta tahay oo biyihii sicil hartis tahay dhulbahanta tahay oo biyihiina la yaxmed tahay dadkaagii ayaa maalin walba wax lagu laynaya laascaanood hadda maanta see kaawasaa loo maraya dhishigasaa loo marinaya caad laga sheegay abbahay iyo waxa way sirlangaha baa laga sheegay ina gumeed ku haaday dadkii dhammaade haddaanad adigu dadkan aan waxba weeye aanad u naxin oo aad sirlanga tahay waryaa wax makuu sheegaa waryaa nimankan majeerta weyn loo sheega war ninkan dhulbahantay adan gacli kursiga kuma fadhiyo dhulbahantana ma matelo mana aha waa balaayo waxa weeye isukii soo cadaysay oo garka inoo soo cadaysatay oo waxa weeye naale axmed iyo dhulbahantay iyo waxa weeye maxay ahayd ugaaliyahan inoo sheegatay hadda ma garatee nimankaa dhulbahante cid metashaagarowe ma joogto haddii xildhibaan matalaa joogo oo madaxweyne ku-xigeen matalaa joogo oo waxa weye wasiir matalaa uu joogo oo agaasimo matalaa uu joogo oo taliye matalaa uu dhulbahante joogo garowe wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi baan laascaanood dadka saa loogu lahay dhulbahante saa loogu lahay adeer axmed karaashow haddaad dasab tahay oo waxa weeye biis haddi tahay iscasil ama dhaqaaq oo waxa weeye gal dadka laascaanood galoo dagaalka qayb qaado laakiin waxa wallaahi baan lagaga asmicin iyo bille iyo talle qodobkaasna waa qodobkaa waryaa hoy hartigii kalow reer puntlandkii kalow dhulbahanta niman hartiya weeye haddii isaaqnimo lagu soo weeraray dawayn hartinimadii la hela haddii somalilandnimo iyo system lagu soo weeraray wayn puntlandnimadii la hela dhulbahanta wuxuu ilaahu mana puntland rabin ilaahu waxwey rabo ilaahu waxweeye faralaga qaad noqdo ilaahu maamul gaar doonayo qaatuma sheeganayo isii yahay waa niman harti ah oo waxweeye biyihii harti ah alloo gurmado sharaf darro ka xumi ma jirto gaalkacayo marka qayle ka soo yeedho dee ninka dhulbahanta waa iman jiri isagoo dhibaata haysato ayuu iman jiri dee maanta waa inuu helaa xitaa abaa la celiya sharaf darro ka xumi ma jirto in laga aamusnaado dadkii oo lagu laynayo meesha la yidhaahdo waxweye laascaanood sool iyo carra harti lagu laynayo qodobkaasi waa qodobkaaso waxaan leenahay war hay fogeeye war halla fogeeyo waxaan kale oo taageeraya oo hambalyaynaya xildhibaanadii dhulbahante ee sool sanaagii cayn ka soo jeeday ee dowladda federaalka qaraarka ay soo saareen ee ay ku taageereen dadkooda ay ku cambaaraynayaan muuse dilka uu ka wado iyo jonasayidka uu ka wado ss jonasayidka uu ka wado muuse laascaanood cambaarayn dhiiriday ee shirka jaraa'id qabtay ayaan taageerayaa oo hambalyaynaya war hartiga kalowna war de qolyihii kalenow ee meesha jooga puntlandow war de idinkuna wax weeye ka qayb qaata inkastoo aan xildhibaano walba la hadlayo iyaguna berrinta shir jaraa'id qabanayaan qodobkaasi waa qodobkaasoo waxaan leeyahay dhulbahanta waa guulaysanaya hadduu mid yahay horgalladiisana iska qabto hadduu dhulbahanta doonayo in cid ka taqalluso oo aakhira u diro horta horgalladiisa waxa weeyaan aakhira ha u diro ina maanta muuse wuxuu idin soo diray dhulbahanto ina koore oo yidhi axan iyo duug iyo xabaalkii lacagtii lagu xabaali lahaa dhulbahante rag iyo dumar ayaa lay soo dhiibay haddaa dhulbahantow aad in yaroo wax weeyaan wanaag idinku jiro oo in yaroo dabiir idinku jiro ina koore iska qabta war horgalkaa qabta war awrkiraalaha qabta war dabeer kiraalaha qabta oo ah wax meel saara inta qof idinka midu muuse uu haysto dhulbahanta waa soconaya muuse intuu mid ka mid ah oo magaca dhulbahanta sheeganaya uu haysto habeenba mid surka jaraya haddana gartay war fogeeya